بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة الدرس كان ولا لدى المامين عن كهضاء الانحراف السلوكي والأخلاقي عند الشباب أو لدى الشباب قلوع دالنتا قشة دكا دقن كي أخلاق ده وصفجك أما وعنوان كفي عنا in تخصصات كإنسانية يعني علوم سوسيولوجي أما أنثروبولوجي أما وحلا نوع عدل له إنه كهذا الشو كنا في عنا in si miidaaniya yacni dad gaara in la daraaseeyo iyo waddan gaara iyo dhul gaara dhibta ka jirta laakiin waxay u muuqataa un anigu takhasuskaana ma lihi si guuduun inaan uga warrami doono ama daraasaadka laga qoray bulshooyinka inala nooca ah waxyaabaha laga tilmaamay inayn wax ka tilmaami doono markaa oo laga yaabo inaynu wax badan wadaagno dad yowga wax laga qoray cinwaanku waxa uu tilmaamayaa qalooca dhanka dhaqanka iyo akhlaaqda kaga dhaca dhalinyarada oo qaloocaasi waxa uu keensanayaa qofku inuu ka baxo macaayiirtii ama wixii dadku ay qiimeynayeen wax ku qiimeynayeen ee bulshada agtooda wanaag iyo quruxda ka ahaa oo u baxo wax bulshada ay u aragto wax laga xishoodo ama dhaqan xumo ah ama bulshada ku keeni kara raad aan fiicnayn islaam ahaanna wuxuumaynu odhan karnaa malaa waa faca hore oo u gudbin kari waaye wuxuu aaminsanaa facaacii ka dambeeyey inxiraafka dhallinyarada ku dhaca wuu tiro badan yahay inxiraafaad jinsiya ayaa dhici kara oo kufsiga iyo zinada iyo fawaaxishtaasi ah waxaa dhici kara inxiraaf xagga mucaamalaadka ku saabsan oo laaluush iyo mukhadaraad la isticmaala iyo khiyaana zawjiya iyo kadib been iyo nifaaq iyo cuquuq ulwaalideyn iyo wax la mid ah waxaa dhici karta in dadku qaabkay u wada hadlaan wax ku saabsan oo afxumo iyo hadal adeeg iyo cay iyo wax la mida waxaa dhici karta mid xagga maalka ku saabsan oo tuugi iyo dhac iyo boob iyo wax la mida waxaa laga yaabaa inuu noqdo mid ku saabsan sistamka iyo ummadda dowladnimadeeda oo waraaqaheeda iyo waxeeda la wada taswiiriyo oo si qaab aan sax ahayn loo sameeyo soo duuduub oo dhaqan xumadaasi bulshada ku dhacda siiba dhallinyaradeeda waxay yidhaahdaan waxa keena laba sababood asbaab daakhiliya oo bulshada dhexdeeda ka timaada iyo asbaab khaarijiya oo dabadda kaga timaada sideedabana qur-aanku wuxuu ina baray dadku haddaanay gudaha ka jabin inaan cadowga dabaddu jabin karin umanku sidoodaba ilaahay saxaabadii jabtay wuxuu u tilmaamay markay idhaaheen say waxaan u dhaceen qul huwa min cindi anfusikum asalku waxa weeyaan bulshadu gudaheeda markay ka jabto iyo ay cadowgana u jabtaa cadowgu waa macruuf inuu dagaal ku jiro ama hay-aad ha ahaado ama dowlada ha ahaato ay dunidaynu maanta nool lahay waxaa jira waxay yidhahdaan fannu takhriib subversion oo dagaalka tooska mooyaane dagaallo kaloo dowladu isku qaadaan ha noqoto mukhadaraad waddan kale lagu faafiyo ha noqoto dhaqan xumo lagu faafiyo ilaa xad hadhow la ysku toorjargareeyo iminka waa maqlayseen idaacaadka dunida iyo waxa laga warramayo ninkii Trump loo odhan jiray gurigiisii loo dhacay ee FBI du baadhaysay wararka soo dulduulaya waxay tilmaamayaan waxa laga soo helay inuu yahay dhaqan xumo Macron sameeyey
والدولة دن والدولة مدحوينهedii dhaqan xumadiisa intay ururisay hadhow rabta inay wax ku torture garaysa ama wax ku marka subversionku dawladuhu dhibta isku hayaan bay ka mid tahay marka in hay'ada yimaadaan dhaqan xumo faafinaya jinsi faafinaya mukhadaraad faafinaya wax la nooca faafinaya waa wax dunidoo dhan ka jira deewaana ogtiin taariikhda bini aadamka dawladaha gargalbeedka ugu xooga badani waddanna inay ugu duuleen inay darooga cabsiiyaan opium warka waa maqasheen dagaalkii xashiishadda waa ingiriis iyo faransiis iyo maraykan dawladaha waaweyn baa ku qaaday china in la cabsiiyo bahashaasi dee kuwa tamarta daran leh xoog uma baahnee xoogaa lacag oo la dhex marmariya waxbay u baahan yihiin un in qudhunqadhaadhkao dhan lagu faafiyo waxaan leenahay markaa asbaabta keentaa asbaab waa asbaab khaarijiya waxyaabaha la isu dhex mariya waxaa ka mid ah iskuullada ajaanibka ee duwalku furtaan meeshii la doonaha laga furo iskuullada ajaanibka inta ugu badan leh value iyo qiyam ummad kale leeday bay faafinayaan waa run xoogaa xisaabaya waa lagu dhigayaa in chemistry iyo intaasi waa lagu dhigayaa laakiin sadaqa ma jirto lilaahi cidina cid waxuma siiso dan kaloo ku lamaanan oo ka dhex socda mid gaara maaha waa sideedba iskuul ajanabi haddaad aragto fikrad buu wadaa sidaa awgeed waxaan leenahay asbaabtaasi waa asbaab khaarijiyo gacan dabadeed ay wado asbaabna waa asbaab daakhiliya taasaana muhimka ah waayo soomaalidu waxay idhaahdaan hebel wuu ku caayiye bay idhahdaan muxuu caayaa walba col baanu ahayn buu leeyahay ninkaa cosha dee dagaalku idinka dhexeeya caydiisu haba ku yeelimaysaa walba waad ogeyd inaa col tihiin cidda awalba ama diin ama dhaqan ama dhaqaale ama waxaa isku hayseen inay bulshadaada dhib u geysato awalba waad filaysay aday ahayd inaad ka gaashaamato isaga ceeb kuma aha isagu waa nin masaalixdiisa iyo dantiisa iyo wuxuu u arkay in faa'iido ugu jirto faafinaya markaynu namaadna asbaabta daakhiliga ah waa tiro badantay asbaabta daakhiliga ee keensata dhalintu inay weecato waxaa ka mida bay idhaahdeen maalan atafakuk ilusari burburka qoyska ku dhaca oo qoysku waa meesha mabaadi'da ay ummadi rumaysan tahay lagu beero waa unuga koowaad ee bulshadu leedahay waa meesha laga rabo dhaqanka afka akhlaaqda waxay dad aaminsan yihiin inuu noqdo hoyga koowaad ee faafinaya haddii gurigu burburo ama dhaqankiisu burburo ama uu kala jajabo ama uu noqon waayo asbaabaha maalan tirada badan lee kale ay keensadaan inaanu gurigu gurigii la rabay noqonin waa wax abuura dhalinta guriga ku kortaa inay weecato waxaa kaloo ay sheegaan laba masalo isu cagsiya waxay idhahdaan faqrigu haddaan iimaan qawiya jirin faqrigu bay idhaahdaan wuxuu keenaa cadam istiqraari lmujtamac bulshadu inaanay deganaanin dhaqaale yaridu waxay keensataa bay leeyihin bulshadu inaanay deganaanin sidaa awgeed beenta iyo khiyaamooyinka iyo waxay bataan markay dadku moodaan xirfad dhaqaale lagu soo heli kara inay tahay oo faqrigu sababay cagsigeeda waxay idhaahdaan maalkaa la midaysna haddii maalku bato dhaqan fiicnaanina aanay jirin dhalintu wax walba tijaabi bay is idhaahdaan had iyo goor waxay ku dhacdaa dadka maalqabeenkaa carruurtooda waayo wax kasta wuu awoodi karaa inuu sameeyo dabeetana bal horta tijaabi buu marka hore ku galaa how is it siday tahay eeg kadibna waa la durugtaa waxaa ka mida bay tilmaamaan inuu yahay alwaasici diiniy dadka oo diinkoodu hoos u dhaco aliimaanu biاllahi wa biاlyowmi اlaakhir iyo wixii ka ratibmayay ay hoos u dhacaan bulshadoo siin weyda mudnaan badan diintooda inay dadka ku dhaqaan ama sistamka dowladnimo ha noqdo ama sistamka waxbarasho ha noqdo ama sistamka guryuhu u dhisan yihiin ha noqdo innagu inta badan carruurtu inay qur-aan xifdido waa ku dadaalaa laakiin
mala xifdiga waxyaabo badan oo ka muhiimsan baa luma oo aan dadaal badan la siinin. waxa ka mid ah bay yidhaaheen waxyaabaha keena dhalintu inay inxiraafaadkaasi ama qalloocaasi inuu ku dhaco alfiraaqu walbataala bay yidhaahdaan. waktiga waxay ku qabtaan inay waayaan, inay shaqo beelaan. nin dhallinyaro oo caafimaad qaba oo soo toosay oo wuxuu qabtaba aan garanaynin ama haynin, waktigu ku tiro badan yahay, shaqo aan haynin, firaaqaasi dadka wuu qarribaa bay yidhaahdaan. waana masaladu nebigu tilmaamayey nicmataani maqbuunun fiihima kaiiru min annaasi asixatu walfaraaq. laba nicmaa jiro dad in badan ka mid ee ay ku kadsoomaan, waa caafimaadka iyo firaaqa. ninka dhallinyarada waxay dhahaan firaaqu uma fiicna, inuu mashquul yaa fiican. shaqo, waxbarasho, wax akhris, xataa cayaar jirdhis, waxay doonta ha noqoto, qofku inuu mashquul yaho aan waqti ku soo bixin baa roob bay dhahaan ninka dhallinyarada ah. si awgeed waxay dhahdaan firaaqa tirada badan leh iyo bataaladuna waa shaqo la-aan. innaga dee dadku uma shaqeeyo, meel ay u kalahaanba inaanay garan bay u badan tahay. labaduba waxay ku keenaan bay leeyihiin dhalinta inxiraafaadka suluugiga ah bay ku keenaan. waxyaabaha keena waxaa ka mid a, waan iska wada dul maraya waxaasoo dhan waxa laga yaabaa mid walba inuu yahay wax dadyawga qaarkood ay buxuud ka qoreen, laakiin uun waa inaynu istilmaamno uun. waxyaaba keena waxaa ka mid a bay yidhahdeen fasaadu lbii'a, environmentka oo xun. inta badan waxay yidhaahdaan dhulka foqorada badani degan tahay, ama dadka dhaqanka xumi degan yihiin, ama mashaakilaadkaasi ku badan yihiin, dadka ku koraana dhaqan xumada way la koraan. dee ilaahay waa qaarka qur-aanka ku leh waalbaladu ayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbih waaladii khabuha laa yakhruju ilaa nakida. dhulka fiican dee doog wanaagsan iyo wax fiican baa ka soo baxa baa la yidhi. meesha dirida iyo abaarta iyo aan ahayn dhulbeereedkana waxaa ka soo baxa baa la yidhi nakid, mid qaadha ama mid aan naf badan lahayn. idan bini aadamkuwana waa la mid. bii'ada fiican qofka ku dhex kora, bii'adu waa deegaanka fiican qofka ku dhex kora, isagaa deegaanku ku toosinayo, waayo xumahaba inaad gaadha waxa laga yaabaa inay adkaato. laakiin deegaanku hadduu liito waa dhib. deegaanka liita waxaa ka mid a bay yidhaahdaan kow, dhallinyaradu inay saaxiibbo xun yeeshaan. oo waxay yidhahdaan ninka dhallinyarada inta uu la hadlo ama uu wax ka qaata ama la sheekeeya mar kasta way ka badan tahay bay yidhahdaan qof weyn intuu laba hadlo. waxay yidhahdaan ninka dhallinyarada ahi qaarkood waxay ku tilmaamaan maalintii 8 saacadood in ku dhodhow inuu hadlo. waxay yidhahdaan 8 saacadood 8% ma gaadho intuu qof weyn la hadlaa. oo la hadlaa uun jiilka ay isku faca yihiin ama kasii yaryar ama noocaa uun ayuunbay wada hadlaan. jiilkaasi markaa hadday jiil liita yihiin way israadaynayaan. soomaalidu maxay odhan jirtay baruur qudhaa baruura qurhmisa. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa aljaliisi saalix wajaliisi suu. saaxiibka ama fagaaraha fiican, naadiga wanaagsan aad la fadhiisato, dadka fiican aad la fadhiisato iyo dadka xun aad la fadhiisataa, siday kuu raadaynayaan buu nebigu ku tilmaamay inay la mid yihiin nin meel forginga, meel dab lagu shidayo fadhiistay, iyo nin meel cutuur lagu iibinayo udug fadhiistay. say u kala gedisan yihiin. midna waxaa la yidhi ama dambasbaa kaaga soo duuli, ama maraduu kaa gubi, ama waxaan faa'iido lahayn baad ka qaadi doontaa majliska. majliska kalena waxaa la yidhi dee udug iyo inaad wax ka iibsatay iyo inuu wax ku siiyo, waxaasay u dhaxaysaa. qur-aankana ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay aakhiro dad badan oo calaacalaya inay ka calaacalayaan saaxiibkii ka xumaaday markay dunida joogeen. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فوقي الله تدعي ولي بل ما ننهبل صاحبك يالني لقد أضلني عن الذكر
بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا إلهي بين وقوى الرمي سبحانه وتعالى ماشى الدنبيت دتكو تجدوني آخر الله يلاده أربعا على الكود إنه نقندو إنه كعلى على صاحبك ودون ده كلها أو سوي هي سوي قد بإلهي النبي بيسوي حكم توجيهي ضدك في عن ولا فريسته ضدك في عن وكوه حق الله كصعده واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا إلهي النبي جسي محمد عليه الصلاة والسلام بوحوك تلماميا نفط هذا واحد كحب بستان لتشوكتا دتك عبادي سنة يا إلهي كحرنا إلهي ودو كوا وحيست حقودا وحبا إنداه وتاجب با إلهي انت قلبي قودا إلهي حسكي سلقت فيلينا كوا وركودا نها أقبل با إلهي لي إذا محلوات الماما يا دتكو كحرنان لها دتكو إذا رفقاء السوء وحكم إذا لبدا والد دفتو دوين يقربين يهين يقول لك قيل هذا ترى هذا علمه يون لك قيل يقول سيجارك لك عبا هذا ترى هذا علمه سيجارك عبي هذا بمرد الله حقان كاجا وعدا هذا عندي قدوة وهيدا للربين وخد يده سوجد النبي الإمام من مولود لا يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو يمجسان أو ينصران حديث كي صحيحها وفق استابق منام بكل شهر لكن اللي بدا والد بقى ما يهودي كدغا اما نصراني كدغا اما كان كدغا ابو النبي تلماميا تا معناه هذا حويان اني يغو لومينيا وحيابه الشيغان نما دراسات كسميه waxa kamida waxay ku tilmaamaan الحريه المطلقه التربيه الحديثه ان ايديولوجيgan dambe reer galbeedku qaatay tarbiyada waxa aad ugu badan eray la yiraahdo xurriyad ilmaha mas'uuliyad si uu dareemo xurriyad si kan si bay aad u tarwiijiyaan waa fiicantay qofku inuu nooc min alxurriya uu helo inaanu cidhiidhi badan dareemin laakiin haddaad dee xadhigiisa luqunta u sudho tidhaahdo iska soco xurriya mutlaqa oo markaa maankiisa oo aan tajribo iyo aqoon ahaantoona ku fillayn ninka dhallinyarada inta badan tajaarib badan ma leh aqoontuna inay iska koobantay baa laga yaabaa haddaad u sii dayso xorriyaddaas iyaduna waxay leeyihiin wax badan bay lugoysaa waxaa kaloo ka mida bay yidhahdaan adduquudaat annafsiya cidhiidhiga marka dagaaladu dhacaan ama dhibaatooyinku dhacaan ama warwarrada badan ee nafsiga ee qofka haleela sababtay doontaba ha u noqoto waxay ku haleelaysaa shaqo la'aanta ku badatay meeshoo nabadgelyadeedu yaraatay mustaqbalka uu arkiba waayey kuwii isaga ka horreeyo agtiisu un taagtaaganoo aanu arag meel ay u socdaanba waxay yidhahdeen waa duquud nafsiya xataa waxay keentaa bay leeyahan alikti'aab qalaq iyo maxaa la yidhahdaa anexity iyo inuu qofku maskaxaanba buufiska waxay odhan jireen inuu warwaraba isku buuqa ama wax la midi ku dhacaan inxiraafaadkaas aynu asbaabahooda wax ka mida tilmaamnay qofkana dhib bay ku hayaan bulshadana dhib bay ku hayaan qofka caadiga ah hadduu dhaqan ahaan weecdo dhib bay ku hayaanoo kow muruu'adiisa iyo sumcadiisaa dhimata qofka bini aadamkii ma aha qoloftan sare waa dhaqanka iyo akhlaaqda uu leeyahay hadday sumcadaadu dhimato oo bulshadaada dhexdeeda aad mambuud qof la fogeeyey ku noqotid oo aad weydo ixtiraami alaakhariin dadku inay ku qadariyaan haddaad weydo waxaa adkaanaya inaad ku dhex noolaato yacni inaad shaqo hesho inaad qof la dhegaysan karan waxaa lumaya shakhsiyadaadii aad bini aadamka ku dhex lahayd oo dhan baa lumaysa marka waxaad u sii weecanaysaa uun adiguna qaska iyo inaad wax qarribtid waxay yidhaahdaan waxaa ku dhaca ta'niibu damiir inuu canaanta isagu isku badiyo qayrkaaba waa kan guulaystay adiga maxaa cidladan ku dhigay waxba iga si ah inuu ku wareero
waxaana sababta keentay ay tahay bay dhahaan dhaqan xumadan ku dhacay taasi waxa laga yaabaa inay keento duu jaamacad ku jira inuu ka baxo madrasada inuu ka baxo inuu shaqadii bulshada waayo shirkadka ama dadkii wax shaqaalaysan jiray inay shaqaalayn waayaan dhaqamada laga dareemay daraaddeed noloshuba inay cidhiidhi ku gashaa suurtagala bay leeyihin waxaa intaa dheer bay leeyihin waxa suurtagala xaaska asxaabta dadkii uu ku xidhnaayo o dhan inuu waayo haddii dhaqankaagu qalloocdo aada u xumaado ilaa xad ay yidhaahdaan shakhsiyadiisa dhaqaalaha xataa raad weyn ay ku yeelanaysaa bulsho ahaanna waxaynu ognahay ummadi ma dunto ilaa akhlaaqdu dunto mooyaane ummaddu gaalnimo qura kuma dunto hadday nooc min alcadaala iyo akhlaaqi jirto ilaahay jaanis dunida wuu siiyaa laakiin hadday dhaqanka iyo akhlaaqdu uu dumaan waa adagtay ummaddu inay sii jirto inaha haddaan iskaga koobo waxyaabaha guuda la tilmaamay waayo waxaynu nidhi haddii aynu rabno innaga bulshadeenna waxay u baahan tahay daraaso gaara inaynu ku samayno oo tilmaamaysa inaynu hello xataa waxaanaan sheegnay nisabku sidee yihin teeba inugu xoog badan maxaa aynu priority-ga maxaynu mudnaanta siinaa dawaynteeda waxa laga yaaba waxaan oo dhammi inay yihiin asbaab inxiraafka keenta laakiin bulshaba in qaar ku badan yihin bulshaba waxyaabaha qaarkood raadaynta ku hayaan ay ku badan yihin waxaasina waxay u baahan yihiin dee ixsaa'iyaad iyo daraaso miidaanaya in bulshada questionnaire lala dhex qaado la daraaseeyo la ogaado cumuuman waxaynu leenahay maxaa dawo ah waxaan leenahay dawada koowaad waxay yidhaahdaan waa wax ka yimaado qofka gudihiisa intaynan u imanin pressureka iyo qaanuunka iyo waxaa kale pressureka bulshadu ku hayso ama bii'adu ama qaanuunka ama waxaa intaynan u iman waxay yidhaahdaan waxa koowaadee qofka toosiya waa waxa gudihiisa ku jira qofku laba sababood midunbuu u inxiraafay bay yidhaahdaan in inxiraaf caqadiya ku dhacay diin ahaan inuu qalloocday oo taa waxa ka ratibma qofka value-ga wax ku qiimeynayaba inay lumaan waxaad wax ku qiimeynaysa hadday lumaan macnaheedu waxa weeyaan waxaan xun aad samaynaysaaba inay wanaagsan yihiin baad u haysataa waxaan aad wax ku qiimeynaysaa hadduu qaldamo wuu ka daran yihin qofka shahwaatu nafsiga oo quri ka qaldameen waayo kani waxaan wuxuu samaynayaa isagoo aan dhibba dareemaynin isagoo arka inay ilbaxnimo tahay ama wanaag tahay ama xadaarad tahay ama dadnimo tahay ama xorriyad tahay ama wax la nooca tahay kaas waxaa ka qaldamay waa qiyamkii waa value-gii baa ka lumay idan wuxuu u baahan yahay in masalada tan la toosiyo waxaa kaloo dhici karta inay xagga shahwaatu nafsiga ka timi bi-adan ku dhex noolyahay iyo rag iyo dumarkan isku walaaqmay iyo waxa kan inay yihiin waxa sababay mid kastaba ha noqotee waxaynu leenahay waxa koowaad ee bini aadam lagu islaaxiyaa waa in qalbigiisa la toosiyo waxay u dhigantaa bay yidhaahdaan markay culammada ijtimaacu tilmaamayaan waxay dhahaan waxay la mid tahay culammada tibku waxaan ay sameeyaane la yidhaha vaccinationka yacni meesha xanuunada faafee khatartii markay yimaadaan waxa koowaadee dhakhaatiirtu ay ka fekeraan waxa weeyaan tallaal ma leeyahay intaynan daawo raadacaynin waxaynu dadka siino oo hadhow waxaan hadduu yimaado ka celiya ma jiraan waa precautionska markaa in laga hortagaabaa laga horraysiiyaa in la daaweeyo qofkoo diintiisa la dhisaa inta uu yar yahay waxay keensataa inuu mutacam yahay in qofkan la tallaalay oo laga tallaalay dhaqan xumada tallaalkaasi waa caqiidadii waa diintii maalan waxaynu soo tilmaamnay tusaalaan ku siinaya qur-aanku ina siiyey waxaynu soo tilmaamnay rafiiqa xumi sida uu kuu raadaynayo iyo khatartiisu say u tahay laakiin yuu raadeeyaa qofka marka hore ah qaabil lilinxiraafka ayuu markiiba raadeeyaa qofka marka hore jilicsan ee aan dhisnayn buu raadeeyaa ama hadduu qofku marka hore isagu dhisan yahay isagaa wax raadaynaya walidaalik qur-aanku labadaba waa inoo tilmaamay mid saaxiibkii raadeeye iyo mid saaxiibkii raadayn kari waayey
mid saaxiibkii raadeeyuu inoo tilmaamo aayaddii qur'aan ee aan akhrinayo hore yaa waylata laytanii lam attakhid fulaanan khaliila laakiin suuratu saafaatna ilaahay wuxuu inoogu tilmaamay qolo jannada gashay oo iswaraysanaysa oo mid leeyahay war bal midinkaar qabo aanu saaxiib ahaan jirnay oo balaaye igu yeedhi jiray halkuu ku dambeeyey aan ogaado oo dabeetana ma naarta inta la tusiyo isagoo naarta bartankeeda ku jira u arki doono qaala qaa'ilun minhum innii kaana lii qariin yaquulu ainnaka la min almusadiqiin saaxiib baan lahay odhan jiray buu yidhi war ma waxbaad rumaysantay waan adduunkan horumaray dhankaaga ka raac waxaan berigii hore dadku ay haysan jireen ka hadh odhan jiray aidaa mitna wa kunna turaaban wa cidaaman a innaa lamadiinuun wuxuu ugu odhan jiray buu yidhi ma intaynu baaba'noo lafa iyo ciid iyo waxaan noqonnaabaad rumaysantay in layna soo saari doono layna abaal marin doono markaas saaxiibadiisii kale jannada kula jiray buu wuxuu leeyahay qaala hal antum muطalicuun war bal kaama soo arkaysaa faطalaca fara'ahu fii sawaa'i ljaxiim baa ilaah yidhi markaasuu isna kii hore wuu calaacalayay soo maaha kana isagoo faraxsan buu leeyahay qaala tallaahi in kidta laturdiin walowlaa nicmatu rabbii lakuntu min almuxdariin ilaahay baan ku dhaartay mar baad karkaarkay weydaarin gaadhay buu leeyahay mar baad ilugoyn gaadhay ilaahay nicmadiisaan ku badbaaday buu leeyahay fadliga ilaahay subxaana wa tacaala idan waxay tilmaamaysaa qofku hadduu dhisan yahay qariinu suu'iga inuu ama iska celin karo ama isaga hanuunin karo at least haddaanu soo hanuuninaynin inuu maxay inaanu raad ku yeelan karin marka waxaan leenahay waxa koowaad aynu u baahannay haddii dhaqan xumo faaftay laga warramayo waxa koowaad aynu u baahannay waxa weeyaan dadka inaynu tallaallo tallaalka ay u baahan yihiinna waa inaynu diintooda dhisno siiba aliimaanu billaahi wa bilyowmi alaakhir qofku inuu ilaahay rumeeyo ka xishoon karo oo muraaqabadiisa iyo muxaasabadiisa garanayo iyo laba inuu maalin qiyaamo oo janno iyo naar jirto oo inta wax kasta uu sameeyey la hor keeno markhaatina isaga uu isku yahay uu ama janno abadiya geli doono ama naar maxay abadiya uu geli doono taa qofku hadday hor joogto oo uu la nool yahay weecweecadkiisu wuu yaraanayaa ka labaad aynu leenahay waynu u baahanay in la islaaxiyo waxa weeyaan guryaheenna waa khatu difaaci haani baynu odhan karnaa gurigu inuu quman yahay labada aabbo ama aabbiyo hooyo siday u fakerayaan inaanay noqonin carruurta in calooshooda un laga fekero waliba dhaqan soomaaligu waa kaa ninku waa nin raga reerku wuxuu cuno hadduu ka dhargiyo guri fiicanna dejiyo hadduu labadaa aada u keeni kari waayana waa wagash wagash nin wanaagsan maaha laakiin waxaa labadaa ka sii muhiimsan inaad dadkan diin ahaan dhargin kartid dhaqan ahaan inaad qumanaysaan kartid toosin kartid idan usrada iyo faamiligu inay dareemaan siiba reerka soomaaliyeed sida uu odaygu aanu u seexanin ama islaantu aanay u seexanin haddii ilmahooda uu caawa gaajo ku seexdo aad buu u warwaraa hadduuse salaad la-aan ku seexdo dee waxba ma dhicin salaad la-aan ku seexdo waxba ma dhicin insha allah nin raguu noqon meelunbuu ka soo bixi baa lagu odhan laakiin hadduu gaajo ku seexdo oo aroortana quraac la-aani u raacdo waxaad leedahay dadka wixii kaa soo horbaxaba adigoo cadhaysan maxaan kaala hadlaya waa war reerkii 2 casho dab looma shidin hadda reerku 2 casho ba salaad may tukanin baa laga yaabaa laakiin 2 casho dab looma shidin ayaa agteenna weyn marka waxaan leenahay usradu waxay u baahan tahay waa khatu difaaci alawal inxiraafkan celinaya inay ku dadaasho kan labaad ee dhalinta celinaya waa almadaaris waljaamicaat waa goobaha waxbarashada asalku waxaa la yidhahaa goobaha barbaarinta iyo waxbarashada laakiin inagu waxaynu muhiimadda siinay labada ta dambe goobo waxbarashaynu u qaadanaynayo qofka in macluumaad la siiyo ogaalkiisa in la badiyo waxa uu og yahay waxaa ka sii muhiimsan qofku dhaqankiisa in laga warhayo
markaynu dhaqaale ahaan burburee jabnay aad moodaa macallinka iyo iskuulka iyo jaamacadda iyo wixii noo dhamay profit minded inay yihiin see dhaqaale loo sameeyaa macallin dee isma baktinaya soo arday u tarbiyeynaya 40 daqiiqe wax qorqorayaaba ku tiro badan leh oo inuu 40 markuu dhigo ka carara oo mid kale tagaa ka carara 5 isu mara waayo isbedde kuu dhala gaajaysan isba kuu dhalay bagaajaysan wax weyn uma aragno inaynu wax ku bixinno inay ubadkeenna u gasho ubadkeenna in macluumaad galaa wax weyn maaha waxa wax weyna transformation information maaha macluumaad maaha ee tarbiya inaynu bedello yaa bedeli kara ugu badan macallinka waxaa la yaqaana ilmaha iyo ka jaamacadda ku jiraaba macallinkooda way qadireen waayo inay ka aqoon badan yihiin bay rumaysan yihiin haddaad rumaysantay qofku inuu kaa aqoon badan yahayna dhegaysigaagu uu fiicnanaya laakiin haddaad rumaysantay qofka inaad aduguba dhaanto ka aqoon badan tahay waxaa laga yaabaa inaad wax badan ka dhegaysanin guriguu ka yimi waxaa laga yaabaa islaanta joogtay inuu arkayo inaanay iskuul fiicanba ka bixin ama odaygu inuu iska xoogsaday inaanu aqoon fiican marka isagaaba isbidaya yarkan jaamacadda dhigta isagaa isbidayaba inuu wax bartay oo caynkaasi si awgeed ilmuhu intuu ka yar yahay muraahiqa bay yidhaahdaan 12 jirka intuu ka yar yahay aabbihi hooyadiiba dadka ula weyn oo wax walba ka dhegaysta waxay ku yidhaahdaan laakiin wixii intaa ka dambaysa waxaad moodaa qaamada odayga iyo islaantu way soo gaabtaan isna u sii dheeraadaa laakiin yuu ilmuhu mar kastaba u yaqaanaa ama ninka dhallinyaradii mar kasta yuu u yaqaanaa wax aqoon ninkan hortaagana wax dhigaya ama macallin iskuul ha noqdo ama professor jaamacadeed ha noqdo meelaha goobaha waxbarashada qofka jooga eraygiisu hadduu yahay erey wax toosinaya wuu u dhega nugul yihi laakiin haddaanay goobteenna waxbarasho qaabkaa u dhisnayn ay u dhisan tahay qaab duruuftu ku kaliftay baaba laga yaabaa oo ah see loo samayn karaa dhaqaale uu ku dhisan tahay iyana dhibteeday leedahay laakiin waxaan leenahay haddaynu rabno dhallintu inay hagaagto waalid iyo dowlad iyo macallinba intaynu isu tagno waa inaynu hagaajinnaa goobta waxbarasho ama iskuul ha noqdo ama madrasadii ama malcamad ha noqoto ama jaamacad ha noqotee inaynu soo saari karno dad values leh waxaa intaa dheer bay yidhaahdaan oo iyada mashkiladeeda aan sidhi mala dee deris gaaraa loo qabanaya saan liiska ku arkay aanan ka hadal wasaa'il al-iclaam iyo wasaa'il al-ijtimaaciya waxa kan warbaahinta ama dee tanaynu jeebka ku sidanna ha noqoto ama ha noqoto tan guryaha inoo taale tviyada ama waxa kan waxaasi waxna waa qalloocin karaa waxna waa sixi karaa inkasta oo macalasaf soomaalida warbaahinteeduna inta ugu badan leh waa profit minded iyaduna sida waxbarashada aan ka sheegno ka sii xun waa lacag raadin maadaama ay lacag raadin tahay value-gu qiimo badan inaan ugu fadhin bay u badantay kuwan yaryara tiktok-ka ka soo hadlaya daawashay raadinayaan si sanaati loo siiyo kuwan facebooka ka soo hadlaya daawashay raadinayaan si sanaati loo siiyo kuwan tv-ga soo eraya in daawashadoodu badataa bay rabaan dabeetana aflaam iyo qurunqadhaadh waa inay soo daayaan si daawashadu badan idan waa viewers saad u heshaa daawadayaal saad u heshaa daawadayaashana dadka in caqligooda lala hadlo marar badan waxaa ka badan shahwaadkooda iyo qaraa'istooda in lala hadlo sida ogeed baa inta badan riwaayadaha iyo aflaamta iyo waxaasoo dhammi intooda badani qurunkay ka shaqeeyaan waayo dadku halkaasi u nugul yihi halkaasu dadku u nugul yihi meeshuu u nugul yaha markaa dhaqaalaha laga sameeyaa innaga wasaa'ilshaas iclaamiga iyo internetka iyo waxoo dhammi waxay u badan yihiin inay dhaqan xumo iyo wanaag oo dhan ka tallaabaan sababta koowaadna aanay ahaynba afkaar ay faafinayaanba ma aha waa hungura keenay un si uu u helo viewers iyo ciddaa wata ayaa waxaa kaa meelay idan kuwa haddii la islaaxin karana islaaxoodu wax badan buu ka keenayaa waxyaabaha islaaxintaa ka qayb qaadan kara ee
hagaajin kara waxaa ka mid ah ixtidaan jiili shabaab dhalinta inaan la firdhine la soo dhoweeyo ama waayeel ha noqoto ama macallimiin ha noqoto ama aimada masaajidda iyo madaarista joogta ha noqoto ama dadka wax dhiga ha noqoto in tawaasul lala samayn karo dhalinta xidhiidh lala samayn karo lala sheekaysan karo la ixtidaani karo awqaadkooda firaaqada ah in loo samayn karo in loo buuxiyo waxuuna aakhiradood iyo adduunkooda wuxuun ka tari kara wuxuu doonaba ha ahaadee ama naadi thaqaafiya ha ahaado ama naadi luqo iyo fanka uma jeedo kan soomaalidu fanka u taqaanay waxaan uga dan leeyahay funuunun wax tari karta qofka bini aadamka la bari kara ha ahaado ama xataa riyaadiyaad jidhkooda dhisi kara laakiin hadaf leh ha ahaada wuxuu doonaya ha ahaadee inay bulshadu ixtidaani karto inay bulshadu hanan karto ixtidaanku waa hanasho inay bulshadu hanan karto ficida dhalinta ah waxyaabaha dee u baahan in wax laga qabtee waxaa wax ka tari karaa waa in ummaddu dhaqaalo samayn karto faqriga in lala dagaalami karo siiba dhalinta in la bari karo waxay ku shaqaystaan oo ku xoogsadaan callimhu kayfa yastaad bay yidhaahdaan qofka waxa siina waxaad bartaa bay yidhaahdaan siduu u ugaadhsado wax siin joogtii waxba ma tarto laakiin in qofka shaqo abuur loo samayn karo waddankeenna dhibta ugu badani shaqo la-aan maaha waa jahli dhulku waynaga badan yahay meel waliba waa bannaan tahay waxaynu cunno maynan soo saari kari waayine waxaynu garan la'nay saynuu soo saarno inaga dhibta in haysata waa kaa dadku waa dhallinyaro dhul badan waa la haystaa wax badan waa la heli karayaa laakiin jahliga wuxuu sababay dee ummadi horumarba ma samayso wax soo saarna ma yeelato laba shay hadday ka dhargi weydo dunida horu martay oo dhanna labada shay baa asal ah energy biyo iyo layd innagana waa labada inoogu daran horumar xaguu ka imanaya markaa bini aadamku hadday uu biyo waayo iyo hadduu casrigan dambe layd waayo labada haddii la waayo horumarba ma jiro labadaasi laakiin hadday mutawafir noqdaan dadku in yaroo wax la baraa buu u baahan yahay wax badan ummaddu way la soo bixi kartaa alla ka cabsigii iyo dee taqwadii iyo yaxsabuhum aljaahilu aghniyaa min atacafuf inay dhici karto qofku isagoo faqiira walidalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiista culamada qaarkood saxiixa ku tilmaamaan qaarna xasanka ku tilmaamaan waxaa ka mid ah waxyaabuu ku ducaysan jiray inay ka mid ahay allahuma inii acuudu bika min alkufri waalfaqri wa cadaabi alqabr ilaa waxaan kaa magan galay gaalnimo iyo faqiirnimo iyo cadaabulqabriga maaha inuu xoolo badan doonayay nebigu bale wuxuu lahaa allahuma ajcal risqa ala muxamadin quuta laakiin dee quudka laftiisa haddaad weydo waa balaaya markaa faqrigu waa kaa waa marka qofku wixii la liqi lahaaba ay qirinqiir galaan wax dhow maaha saa awgeed nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka dalbayey inuu risqa reer maxamed aanay xoolo badanba noqonay inay quut noqdaan laakiin haddana wuxuu ilaahay ka magan gelayey alkufr waalfaqr ilaa saxaabi ka weydiinayay labadaa miyaa la israaciyaa yacni ma laba mar la wada dalba in ilaahay laga wada magan galo xadiisku saasuu tilmaamaya waxaan leenahay marka bulshooyin badan faqrigaa ku kalifa inxiraafaadka oo haddii iimaankuna aanu xoogganayn dadkiina faqrigu u haysto beenta iyo khiyaamada iyo nifaaqa iyo isweydweydaarinta ayaa badanaysaa waxaynu odhan karnaa waxaynu sheegnay oo dhammi waa iska aragtiyo guud bataalada iyo faqriga iyo waxaa in laga takhalluso amni inay ummaddu hesho oo amniga iyo istiqraarku wuxuu ka mid yahay bay yidhaahdaan waxyaabaha inxiraafka celiya ummad kastoo dagaal gashaa bay yidhahdaan traumatized bay noqotaayoo inxiraafaadku waa ku bataan day dadku deganaanshiyaha waayaan mar kastoo deganaanshiyuhu lumo dee dil iyo dhac iyo boob iyo wixii ka hooseeyeyba way bataan waxay yidhahdaan waxyaabaha islaaxaasi dhalinta keeni kara waxaa ka mid ah
iyagu qolada gaaleed markay qorayaan waxay dhahaan tafciil alqaanuun qaanuunka in la hirgeliyo qolada muslimiinta markay qorayaanna waxay ku tilmaamaan alamru bilmacruufi wanahyu can ilmunkar dee dadka wixii qalbiga soo dhaafa wax kaloo lagu xadeeyaa dee inuu jiro yani hargeysa waxaa laga yaabaa dad badan inuu fiican yahay laakiin toban tuug baa dee xagga kale u rogi karaa hadaanay jirin tobankaa wax hadaynaya ahlu fasaadku iyagoo yar bay meeshoo dhan qasi karaan haddii aanu jirin maxay wax hadaynayoo celinaya marka systemku inuu isna system shaqaynaya uu yahay oo alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar ama systemka qadaa'iga iyo waxa kani cuquubaadka iyo waxa kani inuu jiri karo dadka radcin karo laakiin waxay yidhahdaan radcintaasi inta badan waa inay la socotaa ta'hiilu lmunxarifiin kuwa qalloocday in la farsamo baro qofka haddaad xabsiga ku rido oo dabeetana uu ugu tago 10 khabiiroo kasii horreeyey rag qallooca khubaro ku abaa sii fadhiya hadday tuugatiyo hadday diltiyo inta oo kuwaa ka soo dhegaysto isagoo qalinjabiyuu kugu soo noqonaya maad ciqaabin markaasi kooras baad u dirta kooras lagu sii barto farsamada dunida loo fasahaadiyo ayuu soo qaatay haddana marka wuxuu kugu soo noqonayaa isagoo khabiir cusuba idan waxay yidhahdaan ta'hiilu lmunxarifiin dadka la ciqaabay inayana nolosha inay ku soo noqon karaan loo tababaro diin ahaan dhaqan ahaan farsamo ahaan gobollada waqooyi tujaartii ugu waaweyneed rag ka midii dee inta la xidhay unbay xabsiga waxoogaa nijaaradii wax ka soo barteenoo markii dambena maalqabeennada waddankay noqdeen yani qofka in ta'hiil la soo siiyo waxaan ku soo koobayaa inxiraafaadka khaarijiga ay dunidu dagaal bay ku jirtaa dadka caamadii dagaalka inta badan kan qorigaa unbay u yaqaaneen kan xabadda ah laakiin waxaa ka daran qofku inuu qalbiga iyo caqliga iyo diinta ka dhinto oo haddana kaa tirsan yahay kan xabadda lagaaga dilay wuu ku dhaafay wuxuu kaala tego in xooggiisii iyo caqligiisii iyo tamartii uu bulshada ku kordhin laha haabuu kaala tegay laakiin kan la dilay haddana nool waxa weeyaan waa caqli iyo qalbi iyo awood wax sii fasahaadinaysa keligii muu dhimanin laakiin wuxuu samaynayaa maxay bulshada inta kale inuu sii fasahaadiyo duniduna saynu tilmaamnay dagaalka khaarijiga ma dhammaanayo ilaahayna qur-aanka waa ku tilmaamay walaa yazaaluun yuqaatiluunakum xataa yarudduukum can diinikum baa ilaahay yidhi ilaahay ma cid baa ka run badan marnaba ka zuuli maayaan baa ilaahay yidhi ka hadhi maayaan inay idinla diriraan dirirtu ama mid toosa ha noqoto ama mid dadban ha noqotee ilaa iyo ay diinka idinkaga saaraan baa ilaahay yidhi walan tardaa canka alyahuuda wala nasaara xataa tattabica millatahum wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawa waxay jecel yihin baa ilaahay yidhi maanta ururada kaloo dhanka kaale ilxaadku soo maaha nin le ilaahay ma jiro kan dambe waa la faafiyaa oo muxuu ka faa'iidayaa muu isagu iska yidhaahda ilaahay ma jiro deetana suuqiisa galo muxuu ka helayaa ururaa jira mu'tamaraad sanawiya bay leeyihiin jaamacadaa maalgeliya dadyowbaa maalgeliya dhaqaalaa lagu bixiyaa xataa waxay samaysteen amaakin ay yidhahdeen waa amaakinu lcibaada iyaguna bal qiyaas nin kule ilaahayba ma jiro oo haddana kule waa non religious churches bay ku leeyihin churcheska dadka aan waxba rumaysanayn maxay ku qabtaa markay isu yimaadaan waa la isu yaro heesaa music baa la isu tumaa dadka waa la waalaya waa la madadaaliyaa waa church la imanayo idan taasaa lacag iyo caqli iyo xoog iyo cilmi lagu bixinaya wixii ka soo hadhay maxaad u malaynaysaa markaa taasoo aan waxba ka dheefaynin ayuu waxaasoo dhan ku bixinayaa waxa ka soo hadhay maxaad u malaynaysaa markaa
hadday tahay gender iyo dumar baa la xoreynaya iyo rag iyo dumar baa siman iyo rag iyo dumarkuba labaduba ninna waa noqon karaan naagna waa noqon karaan iyo wax la mid oo dhan waxaasoo dhan dad baa dabada ka wado xoolo iyo adduunku bixinaya se ilaahay wuxuu ina yidhi isagoo nebigiisa la hadlaya walaa tutic alkaafiriina waalmunaafiqiin wadac cadaahum watawakal cala allahi wakafaa billahi wakiila idan ayuha alaxiba waxa aan soo sheegnoo dhamme waxna waa inxiraafaat waxna waa sidii inxiraafaadka loo daweyn kari lahaa wasaaisha loo baahan yahay in la isticmaalaana dee waxa ugu sii mudanun aluswa alxasana waaliqnaac bay yidhaahdaan inay dadku dad ay ku daydaan wanaagga inay helaan iyo in dhallinta la qancin karo ku dayashada dee ilaahay baa kitaab iska soconaya ma soo dirina rusul buu soo diray bale rususha laftooda la soo siiyey cid ay ku daydaan ilaahay nebi moxamed muxuu ku yidhi intuu ambiyadii uga soo sheekeeyey fabihudaahum iqtadi iyaga hanuunkooda ku dayo cid aan cid ay ku dayata haysan aadam baa ka jiray baa la yidhi iyo dee xawo iyagana iyagaa traininka la isku siiyey aadam iyo xawona iyagaa inta jannada la geeyey training la soo siiyey markay arkeen sida bini aadamku u jabo baa la yidhaha daba shaqo taga ayaa dhulka la keenay wixii ka dambeeyey oo dhanna tusaalaa la siiyey cid ay ku daydaan waa aluswa ka labaadna waa aliqnaac ninkii dhallinyarada ahaayee intuu nebiga u yimi yidhi zinada ha lay fasaxo nebigu calayhi salaatu wasalaam mana dagaalin mana maagina waa maxay waa qanciye atuxibuhu liummak ku laha hooyadaa miyaad la jeceshay walaashaa la jeceshay kan la jece maya markuu isa soo wada taagay buu u sheegay dee dumarka kalena dad unbay hooye iyo walaal iyo habaryar iyo eedow yihiin qur-aankana ilaahay qiso inoogu tilmaamaya dhallinyarada ku saabsan oo suuratu luqmaan ilaahay kaga warramayo luqmaan alxakiim waa nin xikmad badan baa ilaahay ku tilmaamay xikmaddiisiina waxaa la inooga sheegay wiilkiisii siduu u waaniyey wiilkiisii wuxuu ku waaniye uga bilaabay yaa bunaya laa tushrik billahi ina shirka la dulmun cadiim iyo aakhiro fa inahaa in taku haddii ay dhagax ku jirto iyo hadda samada iyo meel kastaba in aakhiro la keenayo la xisaabayo aliimaanu billahi wa bilyowmi alaakhir buu uga bilaabay dabeetana cibaadaadku ugu xigsiiyey waa salaada aqim الsalaa nebi moxamedna kii la yidhi waxbuu xadxadayay salaatuhu satanhaah buu lahaa ilaahayna qur-aanka muxuu ku yidhi ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar cibaaduu ugu xigsiiyey dabeetana sabir buu ugu xigsiiyey dabeetana dadka iyo sida loola dhaqmuu ugu xigsiiyey walaa tusacir khadaka linnaasi walaa tamshi fi lardi maraxa iyo in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur idan qisadaasina waxa ay tilmaamaysaa dhammaanteed suluug iyo dhaqanka dhalinta sida loo bedelo haddii rabtaa waxay u baahan tahay inay tafaasiirta akhrido ku samayso daraaso dhab ah waxaan ku soo koobaya waqtigii salaaday gaadheen anigu si guud baan u tilmaamay waxyaabaha laga qorqoraa wax ka mid ah kaloo si guud u tilmaamnay nusuusta qur-aanka iyo axaadiista ee masaa'ilkaa ka warrama waxay tilmaamayaan laakiin waxay inooga baahan yihiin wax camaliya waa shaqo camaliya hadday daraaso tahayna inaynu si dhaba u daraasayno dadkeenna qalloocoodu xagguu u badan yahay kadibna inaynu si dhaba u daraasayno xalka inoogu dhowe aynu samayn karnaa muxuu yahay markaas un baynu ka bixi karnaa ama cabashada tirada badan leh ee badhkeenna la qayliyaan gaalaa soo duushay gaalo weligeedba duulimaad bay ahayd badhna la qayliyaan xumihii baa batay waxba iskuma beddelaan dabcan wacyigelintu waa ka mid dadka in la ogeysiiyo in dhibi jirto markaasuu bilaabmaa dareenka in xalka la raadiyaa laakiin waxaynu u baahan nahay xal inaynu raadinno qur-aankaas baana xalku ku jiraa haddii aynu si dhaba u raacayno oo si dhaba ugu dhaqmayno sala allahuma calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin